أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل جوا سلام منتهين وسمية وصن قطي. إن شاء الله تعالى إلى سبحانه وتعالى كل جوا حالدين وذويدين يا ملك سعدوك كشوكتان الفيديو كذا ونسأل عافيمات إيو النبض. إن شاء الله إن صور هذا إن عفوا هذا شن عشر سكين بيسي إن شاء الله تعالى هلك أسي فيديو جيت حنا هنا وسسعوني عافيماتك. إلهي سبحانه وتعالى بعافماتك بحي إلهي سبحانه وتعالى كل جنا نقول الدقة. ولا رجال إن ما أنت وحنك هذا الفيديو آد إن مهم وحندولي مركز إن تسفي عنه لجستان قفكي أسترادك فائدة سنين الجود بسان إن شاء الله دي إلهي سبحانه وتعالى هذه النقطة إن وحن ما أنت رأينا نطلع هذا ما درين تا إن دوف بدن سنكاغو ملي هاي سنة كي مركي عملوا إسبدشة عندهم كو الميان إن محل هذا وح يعني قف حرق بس كهاي كلمات هاي أو أنرش مرة والبكو كعسين هاي إن مركمات وحروينا نكره هذا إن شاء الله تعالى دوا مهمة أو دوينها مرة والبتشوك تأد كهليسد يعني رواية إن شاء الله تعالى هالكني كلا وذاقو أنا سلوا ذا أوجانو مهمة دا ولا هي عافيماتك الدبيعي إنه قفكو برتو سدا شركيسة لو دويو إن سقو استعمالية إن دوينك الدبيعي مركي وبعضو ككلا اختار ككلا أنا conventional كأنا إن كاس نمر بولي هاي لكن مهمة دو حوالي إنه قفكو بالعادة كبرت الصد سقو سودا وين لها قريسة إذا كيسة إيو متقانا عروتيسة إيو وفهمي لها وحياة بدن وقفكو قبل بعد إيو والعق بدن تقلي لها نختار تيجي لها نختار ندق لها وحياة بدن وحشر وقفكو سمين كرو هدي وقفكو إن شاء الله تعالى وبرتو إن برشدنا وحنا بكحولات information أما أنا وكلا إن بريا أما بوك بدك آخر سنة أما فيديو كلات كداونا سا إن أما إن حنون كوهية أياد متقانا كبرى رجسة عاد بارسة سيدي تكون دوين لهيد مركا إن شاء الله تعالى كل يوم حنرتدي كل رجالين إن عاد سكت حل جسان سيدي وحول بقى كل سو جود بونا هذا إن عاد بعد سيدي أدو حل لهيد أدو استعمالين وحياة كما كلا إن إن شاء الله بإذن الله هذا ما أنتوا حنروينا نطلع هذلو شيء مين هو بقى دونك أشوفتك هليسد شيء إله سبحانه وتعالى أن آدي آدرت أنو من سنة هاي إن هاي هديدها إله سبحانه وتعالى وين وينوس إنسيان وسكد وينها إن كسو كيسا إنتي هراء أن لينو بري أن صومالي أهان أن متقنون لنا هاي إن سدا مربكة يو حبسو تدا iyo in qofka quraanka iska akhriyo afwan anyway sorry waxbaan codad baan maqlay so anyways marka insha Allah taala waxaan rabaa in la wadaago in waxa la yiraahdaa bee pollen in saasu qoran yahay muhiimadu waa xarfaha hoose ee aad muhiim ah inaad u fiirsatid bee pollen shinnida ayaa samaysa malab ma aha laakiin waxa weeyaan wuxuu kasoo hadhaa malabka marka la kala shiilo la kala safeeyo ayuu kasoo hadhaa siduu eegahayna insha Allah tacaala waan idin tusi doonaa laakiin aan gudagalno marka hore waxyaabuhu u taro halkan ay igu qoran tahay marka insha Allah tacaala haddaan xaggan eego raalliga noqda informationka ayuu soo dejiyaa oo jirka bini'aadanka markuu uu informationkiisu aada ugu badan yahay ama lafo qofka meesha iska galana xanuunaan ama jir xanuunka ku bato isagoo qofkii cudur haynin oo cudur kale haynin ayuu haddana mar walba
waa iska joojocsan yahay jirku xanuunayaa informationka aad iyo aad buu usoo dejiyaa qofka maxaa la yidhaahdaa beerka ayuu caafimaad u yahay beerka ayuu aad iyo aad caawiyaa in uu mataqaanaa beerku isnadiifiyo haddii uu damage ama beerku uu wax uu si ka ahaana inuu bogsiiyo aad bay ayuu u sameeyaa bee pollenku waxaa kaloo bee pollenku uu sameeyaa in difaaca jirkaaga immune systemkaaga ay boost garaynayaa it boosts your immune system so difaaca jirkaaga ayuu aad kor u qaadayaa marka qofkii markii hargab ama xanuun ama yacnihii isla markiiba kuma dhacayo xanuunku sababtoo ah jirkiisa difaaciisa ayuu kor u qaadaya marka insha allah tacaala ka faa'iidaysta soo iibsada isticmaala also qofku wuxuu u isticmaali karaa sida vitaminka oo kale kaba soo qaad vitamin baad doonaysa inaad qaadatid jirkaaga daciifay jirkaaga waxay iska dhimeen waxaad doonaysaa inaad jirkaaga awoodiisa aad kor usoo qaadid lacagna muu haysid inaad mataqaanaa mar walba vitamin soo iibsatid shaygan haddaad soo iibsatid xarafkii soomaaliga lagu oranayay baa ii gooyay goosh I think inuu goosh ahaa yeah goosh so guush shinidaa samaysa marka waa ubaxa ee lugaha kusoo qaato shinidu markay rabta inay malabka samayso marka shinida ayaa laftarkeeda ay cuna oo ku nool marka waa highly yacnihii waa dawo so marka sida cuntada kaliya looma cuni sida dawadaa loo qaataa waxaa kaloo sameynaysaa waxaa kaloo ka caawiya qofka dumarka aad wuxuu dawo ugu yahay markay gaadhaan ayniga aanay caruurta dhalin jirkooda wax badan iska bedelo oo loo yaqaano ingiriisiga menopause ayuu aad iyo aad dumarka uga caawiyaa uu jirka in ka dejiya dhibaatooyinka hormoneska isbedelaya marka aad iyo aad buu kaas noogu fiican yahay waxaa kaloo dadka qofka ka caawiyaa in uu stresska ama qofka hadduu stresskiisu kor u kacsan yahay qofku isku buuqsan yahay oo kale maskaxda ayuu dejiyaa oo stresskaaga ayuu mataqaana stress levelku hoos usoo dhigayaa stresskana insha allah tacaala isaguna waa xaalad aad iyo aad u muhiima oo dadku u baahan yihiin laftarkooda inay gaar u baadhaan isagana insha allah tacaala waan isugu soo noqon doonaa marka stresska qofkana hoos buu usoo dhigayaa insha allah qofkeeda uu isticmaalo sida caadiga waxaa kaloo uu ku sameynayaa haddii dhaawac aad qabtid ama meeli ku go-an tahay oo kale ama meeli dhaawac aad qabtid jirkaaga siduu isku bogsin lahaa ayuu difaaca ayuu aada kor u qaadaya markaa jirkaaga wuu isbogsinaya haddii nabar aad leedahay oo kale bas insha allah and let me see qofka weyn ee adultiga wuxuu qaadanayaa haddii uu rabo in uu si dawo ahaan oo kale u liqo ama uu cuno 3 ilaa 5 malqacdood yaryar ayuu maalintii u cuni karaa ilmaha yar ee caruurta iyaguna waxay ilaa 1 ilaa 2 qaado ee maalintii la siin karaa marka waa muhiim horta in uu qofku hadduu allergy aad ku leedahay shinida oo aad tahay dadka haddii shinidu ay qaniinto barara xanuunsada dhakhtarka la dhigo kugulama taliyin inaad cuntid waxyaabaha shinidu ay soo samaysay taa dhakhtarkaaga inaad kala xidhiid ba aada muhiim u ah so if you have severe bee sting allergies please make sure that you are not using bee products without the consent of your doctor waxyaaba aad samayn karta oo waxaa jira marka sidii loo qaadanaya aan idin sheego qofka xasaasiyadda uu leeyahay hal mar intuu qaato kama ba-ayso waa in uu qofku jirkiisa usoo diyaar garoobo oo kolba in yar uu qaato kabacdi jirkii baa la qabsanaya sug aan galaafya soo xidho ma raba ina gacmaha ku taabto marka xir suga waa iska dawo markaa ma jeclay inaan
faraha ku shashiyo ma rabo. Okay, so sanu u eegyahay horta marka hore aan isla aragno. saas u eegyahay. saas u eegyahay. waad iska aragtaa inuu yahay ubax yaroo kuskuusan. markaa waa ubaxii iyo qashinkii wax isku soo reebay marka midabka la kala shiilo weeyaan mogtahay. bas anyways, so that's how it looks like. marka qofku wuxuu sameynayaa marka hore waa inuu isbaro uu jirkiisa baro soo la qabsado. haddii aad leedahay allergy xun weeyaan oo aad ku leedahay oo naftaad khatar gasho hadduu dee shinni ay ku qaninto in yar baad u qaadanaysaa. waad isbaraysaa marka hore dhakhtarkaaga weydiiyey. okay, in yar baad saa u qaadanaysaa. waxyar waxba ahayn. a little bit. waa yar qadhaadh. aadna qaadh muu aha laakiin horto macaan ma aha. okay, so saas uu egyahay. dukaanka ayaad ka doonan kartaa. aniga waxaan kusoo iibsay dukaan la yidhahdo PCC. dukaan kale Whole Foods yidhahdana waad ka heli kartaa. any kind of natural market oo qurbaha waad ka heli kartaa. wadankii hooyana dee qofkii shinnida malabkaas dad malab heshid isagana waad ka helaysaa. meesha guriga shinnidu ay dhista ayuu meel gaara ugu urursan yahay oo shinnida cunta. marka taasna waad sameyn kartaa insha Allah tacaala. marka so what you need to do is you need to take a little bit every single day. maalin walba in yar baad qaadanaysaa. jirkaaga marka difaaca ayuu kor usoo qaadayaa si aanad allergiga kugu dhicin. okay, waxaan idinka ilaabi gaadhay maxaa dawo ka dhigay yacni xasaasiyada maxaa dawo oga dhigay. badanka dadku marka la gaadho guga ama spring wax loo yaqaano oo ubaxu baxay dhirtu cagaar noqotay dad badan waxaa jira xasaasiyada ku kacdo hindhisa. waxaad ku hindhisaysaa waxa weeyaan ubaxan iyo caleentan iyo doogan iyo waxaan hawada duulaya indhahaagu aan arkaynin baad waxaad ku hindhisaysaa aad allergy ku tahay waxaas weeyaan. marka gooshkan waxa weeyaan yacnihii ubax kasta oo baxay meeshaad degan tahay shinnidu ay soo qaaday oo laisku daray weeyaan. marka in yar aad maalin walba aad cuntid aad jirkaaga la qabsado waxaa dhacaysa hadhow toole cimilada markay isbedesho kale ubaxii iyo wixii iyo dhirtii iyo wixii aad allergy ku noqonaysa xasaasiyada kugu kacaysay kuguma kacayso. jirkaagiibaa already la qabsaday geedkii fahmaya ubaxii fahmaya already jirkaagii waad bartay. marka waa iska noocma dawo qof isku muday oo kale weeyaan. laakiin please dhakhtarkiina la hadla kala hadla inaad haddii allergy xun aad leedahay oo kan weliba ah kan kale waa iska caadiya duufkan iyo qofku wuu qaadan karaa isagoo dhakhtarka waxba weydiinin. laakiin waxaa daran allergiga qofka haddii shinnidu ay qaminto qofka dhakhtarka la dhigo kale waa muhiim inaan wax malab ka samaysan ama shinni ay soo taabatay inuu cuno ma fiicna. waa inuu marka hore dhakhtarkiisa la socodsiiyo. bas marka insha Allah tacaala. okay, xagga ina maraysaa. let me go back to my notes. wuxuu leeyahay flavonoids, resveratrol, lycopene, vitamin A, C and E. waa antioxidant aad iyo aad buu ugu fiican yahay jirka. yacnihi waa ka hortag gabow qofku inuu marka يعني عمره ضد كل عكلة. yeah, so haddii markaad laqadid aad cuntid aad isku aragtid inaad jirkaaga aad isxoqaysid dhakhtarkaaga la socodsii ama haddii aad barartid oo kale
ama haddii aad dareentid yaro wareer yacnihii madaxa uu ku yaro wareero ama aad neeftu kugu yaraato kale waxyaabahaasoo dhanna waxay ay ka turjubayeen qofku inuu ku yahay xasaasiyad weyn uu ku leeyahay shinidoo kale waa qofka hadday shinidu qaynto ama ku dhinta ama dhakhtarka lagu dhigo marka muhiim inaad dhakhtarkaaga la socotiisid laakiin qof walba isagaa naftiisa og moogtahay waxaa laga yaabaa inaad allergiba ku ahayn shinida laakiin la soco cuncun barar neeftu inay kugu yaraato hawadu ama inaad dareentid lightheadedness madaxa ku yaro wareera aad yacnihii khafiif madaxa ku yaro noqo aad u baahantay inaad fadhiisatid so it's really important that you are watching out for those side effects okay so bee pollen isaguna wuxuu kale u fiican yahay caruurta ama qofka isle jidhkiisa nafaqadii baa ka yaraatay dadka waayeelka ah actually qofku haddii kan kaliya uu cuno aana weligiiba cunto kala cunin ma dhimanayo okay waa complete nutrition wax kasta oo maskaxda kusoo dhacay shirku u baahan yahay kanuu ka helaya marka haddaad kan kaliya iyo biyo kaliya aad kana cuntid biyana cabtid cunto ma u baahanaysidba dad gaajada la qabsatid isbuuca uga horeeya that's it ma u baahanaysid cunto laakiin anigu wada marna cunto joojiya okay so yeah so there you go saasuu eegyahay and muhiim inaad soo iibsataan bee pollen from local okay local kan waa in north waxaa la dhahaa north west yacnihii macnaheed waxay u taagantahay waa kind of like the northwest part of the United States marka malabka dawadiisu waxa weeyaan iyo waxyaabaha malabka la xidhiidha inuu qofku cuno malabka ama bee pollenka gooshka laga sameeyey ama ka baxay qofku meeshuu degan yahay maanta haddii aad doonaysa inaad malab cuntid malab sacuudiga laga soo diray ama waddan kale laga soo diray waa dawo laakiin isku dawo ma aha waxaa kasii dawo fiican malabka shinidu ay samaysay meeshaad degan tahay cimiladaas ayuu jirkaaga garanayaa marka it's very important that you eat honey products or locally made okay locally harvested yeah so there you guys go I'm sorry maanta aad bay videogu usoo jiitamay waa waqti aad iyo aad u dambeeya waa 2 subaxnimo oo dhadhow marka waan iska daalanahay raalli baad gahaanaysaan so there you go bee pollenku aad iyo aad buu ugu fiican yahay qofka allergiga leh xasaasiyadda leh qofka hadduu si fiican oo joogta u qaato waxaa dhacaysaa in oo indhaha ilmeynaysa ay ka tago duufka badan uu ka tago waxaan iska nocma hargabka lamoodo uu ka tago uu dabadii mataqaanaa markuu u baxo aanu hindhiso badan yeelanin marka insha allah tacaala intaasayna ugu ekaanaysaa raallina iga xadoon yaro jeeday videoga yaro dheereeyey insha allah tacaala ilahi subxana wa tacala intii xanuunsansa caafiyo oo dambi dhaafo ooga dhigo ilahi subxana wa tacala intii caafimaad qabto caafimaadkooda ugu wado kuwii ku shukri naqa ilahi subxana wa tacala inaga wada dhigo aad iyo aad baad mahadsantihiin videogan haddaad istiraahdeed aad ka faa'iidaysatay insha allah tacaala subscribe comment kusoo qor wax su-aal haddaad qabtid ama waxyaaba dhiiragelina insha allah tacaala ama waxaad baahan tahay in aan kasoo hadlo haddaad is leedahay qof kale oo ayaa ka faa'iidaysanaya insha allah tacaala u gudbi marka saas iyo khayr baan isku ognahay insha allah tacaala waa bee pollen baan isku ognahay insha allah so kasoo hadla oo soo sheega insha allah tacaala qofkii ay ka caawiso horta so far dadka intii aan u sheegan ku wili qaata u ka tegay xasaasiyadu way ka tagtay marka adigana hadday kaa tagtay insaan la iisoo sheeg oo adiguba soo tijaabi insha allah tacaala khayr badan kala go-in baan idin rajeynayaa insha allah tacaala aliscaafiyo take good care insha allah tacaala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo noqosho dambe waxiisa leh assalaamu calaykum